Assalaamu calaykum asxaabta soo dhawaada Ramadaan wanaagsan maanta waxaan idiin wadaa taxane zombie ah oo lagu magacaabo The Last of Us ugu horeyn inta aan muuqaalka u guda gelin hadaa channelka cusub tahay subscribe noo saar muuqaalkana like si uu gaaro asxaab badan aan u guda galno filimka. sheekadu waxay ku bilaabataa waqti fog sanadkii 1968. barnaamij ayaa telefishinka ka soo muuqanaya saynis yahano ka hadlaya khataro mustaqbalka dhici kara. mid ka mid ah saynis yahanadu wuxuu si degan u sheegayaa in dunidu ka baqdo fayrasyada, laakiin fangasyada aan loo qaadan khatar sababtoo ah kuma noolaan karaan heerkulka jirka aadanaha. laakiin hadduu fangas barto inuu la qabsado kulaylka jirka bini'aadamka, markaas aadanaha ma laha difaac. wuxuu ku dhammeeyaa hadalkiisa isagoo leh, haddii ay taasi dhacdo, daawo ma jiri doonto, aadanahana wuu dhammaanayaa. hadalkaas cidna kama naxdo wakhtigaas, balse waa digniin qarsoon. sheekadu waxay si lama filaan ah ugu boodaa sanadkii 2003 magaalada Texas. halkaas waxaan ku baranaynaa nin la yiraahdo Joel. waa nin caadi ah, shaqo adag qabta, noloshiisana ku dadaalaya. wuxuu leeyahay gabar yar oo la yiraahdo Sarah, taasoo ah waxa ugu qaalisan ee noloshiisa uu haysto. habeenkaas wax walba waxay u eg yihiin kuwa caadi ah, balse jawigu si tartiib ah ayuu isu bedelayaa. dadku way wareersan yihiin, wararka telefishinka waa qasan yihiin, waxaana jira dhacdooyin aan la fahmi karin. saacado gudahood magaalada waxaa ka bilaabmaya fowdo. dad ayaa bilaabaya inay si xun u dhaqmaan, qaarna si lama filaan ah ayay u weerarayaan dadka kale. Joel, Sarah iyo walaalkiis Tommy waxay isku dayaan inay baxsadaan. waddada ayaa noqota meel halis ah, shilal baa dhacaya, dad baa ordaya, guryo baa gubanaya. dunidii caadiga ahayd daqiiqada gudaheed ayay isku beddeshaa jahannamo. markay ka baxayaan magaalada, askari ayaa joojiyana. askarta dowladda ayaa amar adag leh. waxaa la faray in qof kasta oo laga shakiyo la dilo si faafidda loo joojiyo. inkastoo Sarah ay tahay gabar yar oo aan waxba galabsan, askarigu amar ayuu hayaa. Joel ayaa askarigii ku dhaya, waxaan nahay dad caafimaad qaba. intii uusan hadalkii dhammayn ilbiriqsiyo yar gudahood, rasaas ayuu ku furayaa. Sarah way dhaawacantay. Joel gacmihiisa ayay ku dhimanaysaa. askarigiina waxa uu damcayaa in uu Joel rasaas ku furo, balse nasiibun Tommy ayaa gadaal ka imaanaya, waxa uuna diliyaa askarigii. baylada Joel, murugada iyo jahawareerkaas ayaa calaamad u noqda burburka noloshiisa. halkaas ayuu Joel ku luminayaa qalbigiisa jilicsan, wuxuuna isu beddelayaa nin ad adag oo aan si fudud u aaminin cidna. sheekadu markaas waxay u boodaa 20 sano kadib, waana 2023. dunidu hadda waa meel gebi ahaanba ka duwan tii hore. magaalooyinka waa la xiray, dadkuna waxay ku nool yihiin goobo cuntadu waa xadidan tahay, xorriyaddu way yar tahay, cabsi joogto ahna way jirtaa. hay-adda xukunta waa fedra oo ah awood militari oo maamusha nolol kasta. qof kasta oo ka baxa xeerarka fedra, dil ama xabsi ayuu mutaystaa. Joel hadda waa nin ka duwan kii hore. wuxuu noqday nin waxyaabaha sharci darrada ah gudbiya si uu u noolaado, ma daneeyo siyaasadda, mana daneeyo cidda xukunta. waxa keliya ee uu rabo waa inuu noolaado. wuxuu la shaqeeyaa haweeney la yiraahdo Tess, iyaduna waa qof adag oo la qabsaday nolosha cusub. dhanka kale waxaa jira koox la yiraahdo Fireflies, dad ka soo horjeeda fedra, waxayna rumaysan yihiin in aadanuhu mudan yahay xorriyad iyo rajo. waxay raadinayaan xal fayraska ah, inkastoo fursaddu aad u yar tahay. fedra waxay u aragtaa Fireflies cadow. maalin maalmaha ka mid ah, Joel iyo Tess waxaa loo dirayaa hawl cusub. waxaa la farayaa inay qaadaan gabar yar oo la yiraahdo Ellie si ay ugu gudbiyaan Fireflies meel ka baxsan aagga xiran. Ellie waa gabar caqli badan, hadal badan, kana duwan carruurta kale ee ku nool dunidan burburtay. markii la baarayo, qalabka cabbira caabuqa waxba kama muujinayo, inkasta oo hore loo qaniinay. arrintan waa wax aan hore loo arag. intii ay baxsanayaan, askarta fedra ayaa weerar ku qaada. rabshado ayaa dhacaya, rasaas ayaa la isdaafsanayaa, qaar ka mid ah Fireflies waa la dilayaa. askari ayaana arkaya, waxa uuna ku soo taagayaa qori. Joelna waxa uu soo xasuusanayaa ninkii dilay gabadhiisa, waxa uuna garanayaa in uu isla ninkii dilay gabdhiisa uu yahay. waa uuna ku boodayaa, waxa uuna ka dafayaa qorigiisii, waa uuna garaacayaa ilaa uu ka dhinto. Joel, Tess iyo Ellie way baxsadaan, iyagoo og in wixii hadda bilowday ay ka weyn yihiin iyaga. Joel, Tess iyo Ellie waxay ka baxsadeen aagga karantiilka, iyagoo ka cararaya askarta fedra. jawigu waa mid aamusan, balse cabsi buuxda ayaa ka muuqata. magaaladii Boston waxay u muuqataa mid burbursan, dhismayaal duugoobay iyo waddooyin cidlo ah ayaa hareerahooda yaala. Joel weli ma aaminsana Ellie, wuxuuna u arkaa keliya xamuul ay tahay inuu geeyo. markay socdaan, Tess waxay Joel ku qancisaa in hawshani ka weyn tahay lacag. Ellie ma aha gabar caadi ah, inkastoo ay qaniinyo hore u leedahay, weli ma isbedelin. tani waa wax aan hore loo arag, waxaana laga yaabaa inay noqoto furaha xal helidda fayraska. Joel haddana wuu ka aamusan yahay, qalbigiisana weli waxaa ku jira dhaawicii hore. dhanka kale, sheekadu waxay ina geynaysaa Indonesia sanadihii bilowga faafidda. halkaas haweeney saynis yahan ah ayaa lagu wargeliyaa in bur wasakhaysan uu sababay cudur halis ah. markay baaritaan samayso, waxay ogaanaysaa in fangaska lagu magacaabo Cordyceps uu la qabsaday jirka aadanaha. iyadoo murugo leh ayay ku talisaa in aan xal jirin, ayna khasab tahay in la joojiyo faafidda oo ay macnaheedu tahay in la qarxiyo magaaladan. marka haweeneydu waxay muujinaysaa in musiibadu aysan ahayn
ahayn shil yar balse ay ahayd masiibo aan xal lahayn tan iyo bilowgii. Aan dib ugu laabano 2023. Joel, Tess iyo Ellie waxay galaan dhisme qadiimi ah si ay uga dhuuntaan khataraha bannaanka. Halkaas ayay kula kulmaan nooc cusub oo caabuqsan, kuwaas oo aan ahayn kuwa waalan oo keliya balse si wada jir ah u dhaqma isla markaana aadaya meesha ay dhaqdhaqaaq ka dareemaan. Tani waxayna tusinaysaa in fangasku uu noqday mid caqli badan kana khatar badan sidii hore loo malaynayay. Intii ay ka baxsanayeen dhismahaas waxaa soo weeraya zombiyadii waana ay la dagaalamayaan. Mid ka mid zombiyadii ayaa Joel dusha ka fuulaya, markii uu qaniini rabana Tess ayaa ka fujinaysa, Tessna dhulka ayay ku dhacaysaa. Waxa ayna ku dhahasaa Joel, intaan ka badan ma socon karno. Ellie ayaana dareemasa waxa ay leedahay waxa ay qabtaa caabuq. Tessna waxa ay soo saarasaa qoorteeda, waxaan arkaynaa in la qaniinay. Waxa ay leedahay Joel, waa inaad ka haysaa gabadhan sababtoo ah waa furaha daawada cudurkan. Joelna waxa uu leeyahay ma awoodo midaas sababtoo ah gabadhan waxa ay qabtaa cudur. Tessna waxa ay leedahay badbaadi qofkii ku badbaadiyey. Joelna waa uu yeelayaa, waa ayna soo tegayaan. Tessna waa ay ka harasaa. Markana waxaan arkaynaa zombiyo badan oo soo socda soona galay dhismaha ay Tess ku jirtay. Tessna waxa ay meesha ku daadinaysaa fuustooyin gaas ah, waxa ayna dhigasaa bumbooyin, waxa ayna soo baxsanaysaa laytar ama qaraxad, waxa ayna damacasaa inay shidolkan waa ay u shaqayn weynaysaa. Intii ay kuguda jirtay daarista ayaa waxaa dhinaceeda u soo dhaqaaqaya zombiye, waxa ayna dhulka ku tuurasaa dabkii, halkaas oo zombiyadii iyo Tess ku wada gubanayaan. haddii aad halkan nala soo gaartay waxaa kaa codsanaya inaad muuqaalka like noo saarto, channelkana subscribe dhahato si filimkana qaybtiisa labaad kuu soo gaarto. mahadsanideen.